moogtahay inay kuwan yihiin shanta makhluuq ee eebba abuuray iyaga oo aabba iyo hooyo midtoona lahayn si ay calaamad iyo aayad ugu noqdaan dadka ka hor intaynaan bilaabin ku sali nabiga sallallahu calayhi wasallam. sidoo kale ha hilmaamin inaad like saarto muuqaalkan, sidoo kale sii sheergarayso naguna soo biirsa aad wax badan u faa'iido. kow, nebi aadam calayhi salaam eebba wuxuu ka abuuray dhoobo, wuxuuna ahaa aabbihii aadanaha. laba, hooyadeen xaawa waxaa laga abuuray feedhii nebi aadam calayhi salaam, waxayna ahayd haweenaydii ugu horreysay ee ilaahay koonka uu ku abuuro. saddex, hashii nebi saalex calayhi salaam oo loo yaqaanay naaqatu saalax waxay ka soo baxday buur si ay mucjiso ugu noqoto qoomkii reer thamuud, ugu dambeyntiina waa ti lagu rogay. afar, maskii nebi muuse calayhi salaam waxay ahayd ul uu lahaa nebi muuse calayhi salaam oo uu ku raaci jiray adhiga, mararka qaarkiina uu ku tukubi jiray. markii ay masweyn noqotay waxay cuntay dhammaan masaskii yaryaraa ee ay soo tuureen sixiroolayaashii fircoon, waxayna muujisay awoodda rabbi iyo rabitaanka ilaahay inuu yahay kan mar walba soconaya. shan, wankii lagu furtay nebi ismaaciil calayhi salaam markii nebi ibraahim calayhi salaam uu riyo ku arkay inuu gowraco wiilkiisa ismaaciil calayhi salaam, wuxuu go'aansaday inuu fuliyo amarka ilaahay. markuu diyaar u noqday inuu gowraco wiilkiisa ee uu geeyey meeshii uu ku gowracayay, ilaahay wuxuu u soo diray wan weyn oo uu samada ka soo dejiyey si uu ugu bedelo wiilkiisa. haddaba daawade, adiga su-aal haddii aan ku weydiiyo, hore ma u ogeyd? sidoo kale midkii ayaa xoog kaga yaabiyey? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto youtube-ka iyo facebook profilka saaranna aad subscribe dhahdo.